run ahaantii waxay noo tahay farxad iyo bogaadin weyn inaynu daah furno musawaca hagaha maraakiibta isaga gooshaysa dunida daafaheeda khaasatan ku soo hiranaysa dekedeenna marka ay ama dabaylo dhacaan ama mawjadaha baddu ay qaataan doonyaha iyo maraakiibta kaleba inay ku soo hirtaan dekedda si ay ugu soo xidhaan oo uu hago oo uu tilmaamo sidaa laga sheekeeyey waxa taariikh dheer ayuu leeyahay oo ku siman 100 sannadood inaynu maanta dib u daah furno oo technology-ga kale ee casriga ah iyadoo la isticmaalayo haddana muhiim yahay isticmaalkiisu oo lagu soo hirto oo uu noqdo iftiin ifaayo oo kala hagaya hawlihii maraakiibta ee ay wasaaradda iyo dawladduba ku hawlanayd waxa weeye tallaabo hore aanu qaadnay oo dhinaca horumarka dekedaheena qayb weyn ka ah khaasatan degedda magaalada Xamar waan ugu hambalyeynaya wasiirka iyo hawlwaneedada wasaaradda iyo ciidamada baddaba dawladnimada dib u dhiskeedu waa taa maalinba wax ay noogu soo kordhayaan taariikhdii aan lahayn dib aynu u soo ceshanayno dawladnimadii dib u kabayno waxyaabihii imkaaniyaadka ahaa ee dawladnimada kabaayay dhinacyadeeda kala duwan maalinba mid aynu dib u daah furayno haddaynu halkaa kaga sii wadno horumar waa gaari karnaa dalkeenina dib waa u yeeleli karnaa waan kuugu hambalyeynaya wasiirka kalluumaysiga iyo wasiirka dekedaha dhammaantiinba hawsha wanaagsan ee aad gacanta ku haysaan oo wadaan waxaan leeyahay si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay musawaca si loogu soo hirto waa mahadsantihiin hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu